habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin la dagaalanka wararka been abuurka ah ee Soomaaliya wariyaasha ayaa naftooda halis u galiyay si ay runta u sheegaan warbixin ayaynu kaga haynaa magaalada Muqdisho qodobada kale ee caawana waxa kamid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa booqanaya Sacuudiga si uu ugu booriyo mas'uuliyiinta waddankaasi in ay la shaqeeyaan baaritaanka wariyihii la dilay Jamaal Khashoggi tobanaan dadka xuquuqda aadanaha u ololaya ayaa istaagay jidadka maaraatoonka ee Beirut si ay uga soo horjeestaan dhaqanka dumarka la kufsado ee haddana dadusha laga saaro faqadada ciyaaraha ee caawan waxaanu ku eegi doonaa ciyaarihii ugu kulula ee horyaalka Ingiriiska ee toddobaadkan kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka BBC-da ayaa maanta bilowday mashruuca ka hortagga wararka been abuurka ah Beyond Fake News kaasi oo hadafkiisu yahay sidii loo heli lahaa hababkii looga hortagi lahaa kor u kaca wararka been abuurka ah awgeed mawduucan ayaa hadda waxa uu aasaas u noqday ololaha siyaasadaha waxaana uu dhaliyay dood badan cilmi baaris haddaba lagu sameeyay India, Kenya iyo Nigeria ayaa lagu xaqiijiyay in dareenka dadku uu ka awood badan yahay runta marka ay wadaagayaan wararka ay ku wadaagayaan markii ay BBC-du la hadashay dadka Nigeria ku sugan iyo Kenya ee isticmaala baraha bulshada BBC-du waxay ogaatay in dad badani ay moodayaan in ay kala guri karaan wararka been abuurka ah iyo wararka xaqiiqada ku fadhiya waxaana Nigeria siyaasadda iyo argagixisada ay yihiin fariimaha sida badan loo wareejiyo maadaama ay hooseyso aqoonta dadka degan meelaha miyiga ah ee dalalka Nigeria iyo Kenya dadku waxay u arkaan qoraalada Facebook lagu soo qoro in ay yihiin ama internetka kuwa run ah haddaba faafinta wararka been abuurka ayaa sidoo kale wiiqi kara wararka saxda ah sababtoo ah waxay baabi'inayaan kalsoonida waxaanay kala qaybinayaan bulshada sidoo kale waxa ay badanaya isnacaybka dadka dhexdiisa taasi oo sababi karta foodo ama dhimasho dalka Soomaaliya ka hortagga wararka been abuurka ah ama dacayada waa hawl halis ku keeni karta wariyaha qudhiisa si aad u hesho xogta run ah oo rasmi ah waa in wariyuhu uu u bareero halis uu naftiisa ku weyn karo ama uu dhexda uga dhaco khilaaf u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo xagjiriinta al-shabaab tafatiraha Afrika ee BBC-da ayaa u safray caasimadda Muqdisho si uu la kulmo qaar ka mid ah wariyaasha ugu geesisan Afrika ee dunida waa warbixin ku saabsan sida dhalinyarada Afrikaanka ahi ay halista ugu bareeraan si ay runta u helaan waa meel ku dhawaad 40 suxufi lagu dilay in ka yar 10 sano waa goob ay dad badan isku dayayaan inay dib u dhisaan dal burburay rabshado iyo kala qaybsanaan waa goob suxufiga daacadda ahi loo baahan yahay inuu geesinimo sheegto fake news ama wararka been abuurka ahi halkani waxa ay la mid yihiin kuwa dunida been ayaa run oo kale loo baahiyaa dacaayad ayaa xaqiiqo laga dhigaa farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya halkan iyo dunida kale waa in dagaalka lagula jiro been abuurka halkani uu yahay shaqada ugu halista badan wariyaasha reer Sacuudi ee Jamaal Khashoggi Xuseen Maxamed waxa hore ugu hanjabay al-shabaab iyo ciidamada dawladda waqtigiisa inta badan waxa uu ku bixiyaa inuu kala miiro wararka been abuurka ee baraha bulshada maalin walba wuxuu iska hubiyaa ilaha uu warka ka helayo marka aad haysato ilo badan ayaad helaysaa xog badan waxaan isku dayaa inaan warka ka helo ilo kala duwan marka ay arrin jirto sidaa ayaan ula macaamilaa wararka been abuurka ah si aad u hesho xaqiiqda waa inaad wajahdaa cabsida guud ee dalkan sanad ka hor in ka badan 500 oo qof ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho waa weerarkii argagixisay ee ugu xumaa taariikhda Afrika waxaan dib u soo raacnay tallaabooyinkii uu Xuseen maalinta qaaday dad badan ayaa dhiig baxayay waxaan isku dayay inaan caawiyo dhaawaca musiibo ayay ahayd waxaan dareemaynaa sida dadka kale iminka wali inaad halkan taagnaato waa halis waxa dhici karta in bam qarxo ama lagu toogto Soomaaliya inaan ku noolaado Soomaaliya waa halis khatar ayaan ku suganahay amni xumo badan ayaa jirta wariyaashana mar walba waa lagu dilaa Soomaaliya kuwa la dilay waxaa ka mid ah Hindiya Xaaji Maxamed oo la dilay sanadkii 2015 waxay ahayd wariye iyo hooyo 5 carruur leh al-shabaab ayaa si gaar ah u bartilmaameedsatay ninkeeda oo isna wariye ahaa kooxda ayaa dishay 3 sano ka hor dilkeeda
maanta walaasheed oo 19 sano jir ah ayaa korinaysa carruurta ay lamaanahaasi ka geeriyoodeen. waxay ahayd corodka qoyskeena, tusaale aan ku daydo ayay ii ahayd. markii aan qalinjabiyey waxaan rabay inaan sideedoo kale u shaqeeyo. markii ay dhimatay waxaan ku fakaray in sideedoo kale la ii deli doono. sidaas darteed waan ka tanuusulay qorshahaygii mustaqbalka. farxiya ayaa ha yeeshee ku haminaysa inay maalin uun wariye noqoto. dhanka kale ee magaalada hotel si xooggan loo ilaalinayo, wariyaal ayaa dawladda ka dalbanaya difaac. waxay halkan u yimaadeen inay la kulmaan wasiirka warfaafinta. in badan oo ka mida waa haween da'yar. waa isbeddel ka dhex muuqda bulshadan hal adayga leh. ballanqaadka wasiirka waxaa dhegaysanaya xuseen. mar walba ayuu khudbaddaas jeediyaa. saraakiisha dawladda waxay kuu sheegayaan in ay xoogga saarayaan in ay ku ilaalinayaan. sidaasay tahay sannad walba suxuufi ayaa lagu dilaa Soomaaliya. dhegaystayaasha waxaa kaloo ka mid a aabbe wiilkiisa oo wariye ahaa uu boolisku toogtay. wuxuu weli jawaab ka sugayaa dawladda. wariyayaasha ajnebigaa sida aniga oo kale waan imaannaa dabadeedna tagnaa. laakiin xuseen iyo asxaabtiisu halkan ayay sii joogi doonaan. xilligay noqotona waa la dili karaa maanta, berri ama berri dambe. dadaalkoodu waa tusaale cajiib ah oo aan la dhayalsan karin. kuma sinna dalkan oo keliya, laakiin waxa ay tusaale u yihiin isbeddelka Afrika. Soomaaliya waxaa mar walba xuquuq ku yeelan doona dhallinyaradan ragga iyo dumar kale, kuwaasoo u halgamay una dhintay runta raadinteeda. bal markana xagga iyo Riyaad, xogayaha arrimaha dibadda ee UK Jeremy Hunt ayaa u socdaalay waddanka Sacuudi Carabiya si uu ugu dhiirigeliyo madaxda waddankaasi in ay gacan ka geystaan sidii cadaalad ay u heli lahaayeen qoyska wariyihii la dilay Jamal Khashoggi. qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa lagu dilay 6 toddobaad ka hor. boqoshada Mr. Hunt ayaa timid iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu u sheegay amiirka leh dhaxalka Washington in ay u raacanayso dilka cid kasta oo ku lug lahayd. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya. booqashada xogayaha arrimaha dibadda UK ee Sacuudiga ayaa ku bilaabatay kulamo uu saakay la yeeshay boqor Salmaan. ujeedka muuqda ee Mr. Hunt waa inuu sii wadaa cadaadiska saaran hoggaanka dalka kadib dilkii bishii hore ee Khashoggi. waxaa laga filayaa inuu u sheego sida bulshada caalamka ay uga midaysan tahay argagaxa iyo carada dilkii waxashnimada ahaa ee Jamal Khashoggi. waxayna ku dhiirigelinayaan mas'uuliyiinta Sacuudiga in dhimashadiisa ay si buuxda ugala shaqeeyaan baarayaasha Turkiga. 5 toddobaad ayay hadda ka badan tahay ilaa iyo markii uu qaatay go'aanka dhimashada ahaa ee uu ku galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. in halkaasi lagu dilay markii hore waa la beeniyey. haddana ugu dambayn madaxda Sacuudigu way qirteen, balse waxay weli sheegayaan inaysan qoyska boqortooyada ku lug lahayn. hadal muhiim ah ayuu toddobaadkan sheegay madaxweynaha Turkiga Erdogan. Katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor. Biz isaga oo sheegay inuu cod ku wareejiyey waddamada galbeedka oo ay Britain ku jirto, kaas oo la sheegay inuu caddaynayo dilkiisa. wuxuu sheegay in dilka laga soo amray halka ugu sarraysa dawladda Sacuudiga. taasi waxay cadaadiska ku kordhisay hoggaanka Sacuudiga. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo shalay Bariis joogay ayaa sheegay in Mareykanku uu ka doonayay jawaab kuwa ku lug lahaa dilkaas. telefoonka ayuu hadalkaasi ugu sheegay amiirka dhaxalka Sacuudiga leh Maxamed bin Salmaan. balse su'aal ayaa ka taagan in waxaasi oo dhan ay Sacuudiga ka dhaadhicin karaan in ay daboolka ka qaadaan faahfaahinta cidda bixisay amarka dilka. dhinaca kale waxaa jira qorshe kale oo ah dagaalka Yemen, kaasi oo Sacuudiga ay qayb weyn ka yihiin. waxaa jirta xabad joojin ay horkacayaan Mareykanka, Britain iyo dalalka kale reer galbeedka. iyadoo malaayiin reer Yemen ay ku jiraan dagaalka, haddana waxaa haysta macluul. duqaynta Sacuudigu waxay horey u dishay kumanaan rayid ah. iyadoo cadaadis daran uu saaran yahay Sacuudiga oo ku saabsan dilka Khashoggi, haddana Britain iyo Mareykanka waxay qabaan inay jirto fursad xabad joojin ah. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. heshiis lagu doonayo xabad joojin ka dhacda Gaza ayaa shaki ku jira kadib markii sarkaal ciidanka Israa'iil ka tirsan iyo 7 Falastiin oo ku jira taliyahoodii lagu dilay marinka Gaza. ciidanka sida gaarka u tababarana Israa'iil ayaa lagu soo waramay in ay ku jireen hawlgal xog ururina, waxaana ay sababtay duqayn culus oo ciidanka cirka Israa'iil ay geysteen iyo gantaalo laga soo riday dhinaca Gaza oo Israa'iil lagu soo ganay.
dalka Yemen qaramada midoobay ayaa sheegtay in la xakiyay dagaalkii ka socday magaalada Dekadale ee Xudayda waxay arintani timid 2 maalmood kadib markii dagaal ba'an uu ka socday halkaasi kaasi oo la sheegayo in lagu dilay ku dhawaad 150 qof xulafada uu wadanka Sacuudi Carabiga horkacayo ayaa ku dhawaanayay magaaladaasi mucaaradka ay gacanta ku hayaan laakiin dagaalyahanada Xuutiyiinta ee mucaaradka ayaa la sheegayaa in ay dib isaga caafiyeen weerarka xulafada dab ayaa saaka ka kacay kaydka hadalka ee raadiyo Muqdisho ee magaalada Muqdisho kaasi oo dhisnaa in ka badan 60 sano agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa BBC-da u sheegay in dabka oo ka kacay qaybta afafka qalaad lagu guuleystay in la damiyo walow cajalada halkaasi ay ku gubteen ilaa hadda lama oga sababta dabka dhalisay balse waxa mas'uuliyiintu ay sheegeen in ay wadaan baaritaan arrintaasi ku wajahan haweeney Australian ah oo lagu eedeeyay in ay bilowday cabsi xagga cuntada ah kadib markii ay cirbado dhex gelisay miraha la cuno ee strawberries-ka ayaa maxkamad la hor keenay kadib markii shalay la soo xiray haweeneydan oo 50 sano jirta ayaa la sheegay in ay arrintan u samaysay argoosi iyo dadka dhibaato u geysato Mai Otirin ayaa haddii dambigeeda lagu helo waxay mudan doontaa 10 sano oo xariga mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxay noo soo socdo qaybta dambe barnaamijka aad ku maqli doontaan ama aad ku daawan doontaan faqidada ciyaaraha oo caawa aanu ku eegi doono ciyaarihii ugu adkaa ee horyaalka Ingiriiska ee toddobaadkan wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka ee BBC waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale banaan xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweynaa la dagaalanka wararka been abuurka ah ee Soomaaliya wariyaasha ayaa naftooda mar walba halis u geliya si ay runta u sheegaan xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa boqonaya Sacuudiga si uu ugu booriyo mas'uuliyiinta wadankaasi in ay la shaqeeyaan baaritaanka wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi kumanaan qof ayaa wadooyinka safta si ay u taageeraan orodyahanada ka qaybgala orodka dheer ee maraatoonka balse toddobaadkan magaalada Beirut ka qaybgalayaasha sida waa ay ka duwanaayeen waxaana ay ahaayeen dibadbaxayaal wacyigelin u sameynaya sida loola dhaqmo kuwa kufsiga ka badbaaday iyagoo adeegsanaya astaanta yay ceeb ku tahay waxaana ay rajaynayaan inay wax ka bedelaan fikirka bulshada Yaasmin Axmed ayaa ka waramaysa kama cararayo qofkii kufsaday laakiin waa iska celinaya waa fariinta ay ku ololeynayaan dibadbaxayaashu ee orodka dheer ee Beirut dhaqdhaqaaqayaal soo xirtay dhar madow ayaa saftay dhinacyada wadada orodka ololaha waxaa soo abaabulay hay'ad rayid ah ujeedaduna waa in eeda laga wareejiyo dhibanayaasha fartana lagu fiiqo dambiilayaasha hawsha maanta dhinac socota maradoonka caalamiga ee Beirut waxay qayb ka tahay ololaha toddobaadka ee ceeb ayay ku tahay oo looga gol leeyahay in lagu iftiimiyo dhaqanka eedda ee haweenka la saaro maanta waxaan go'aansaday inaan wajaho kan gabar kasta kufsada ee falka ku kaca waxaan sidoo kale tan u samaynayaa inaan u sheego wiil kasta iyo gabar kasta inay awood u leeyihiin inay iska celiyaan kan kufsiga geysta waxaa la sheegay in 25% dumarka Lubnaan jidadka lagu weeraro kiisaska inta badan lama soo sheego sanadkii hore baarlamaanka Lubnaan ayaa mamnuucay sharci fasaxaya ninkii gabar kufsada haddii uu guursado laakiin ka hadalka kufsiga waa mid weli ceeb ka ah Lubnaan dibadbaxayaashu waxay rajaynayaan in ficilladoodu ay dalka ka abuurto dood cusub waxayna rabaan in la bedelo habdhaqanka bulshada waxaan u gudagalaynaa hadda qaybta falanqaynta ciyaaraha ee toddobaadkan waxaa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Daysane mid ayaan u eegi doonaa laakiin marka hore haddaad dul marto ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ciyaarihii aad iyo aad ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay Liverpool iyo Fulham taasoo Fulham ee kooxda ugu hooseysa ee Premier League isla markaana ah kooxda ugu gool dhalinta badan looga dhaliyay ayaa 2-0 ay uga adkaatay taasoo Mohamed Salah goolkii ugu horeeyay oo ka dhaliyay waxa kale wada ciyaaray Chelsea iyo Everton ayaa wada ciyaaray taasoo Chelsea
u suurtageli weysay Everton difaacii adkaay inay maraan oo barbardhac ayay ku kala tageen. Arsenal oo gool Wolves kala hormartay ayaa saacadii ugu dambeeyay Makatier gool u dhaliyay taasoo 1-1 ay ku kala tageen. laakiin ciyaartii la yaab kale aad iyo aad u quruxda badneed waxay dhaxmartay oo la wada sugayay City iyo Man United taasoo labada koox isla degan yihiin. ciyaartaas haddaan dhex galno waxay ahayd ciyaartii maalintii axadii weyneyd loogu yeeray kubadda cagta shalay, laakiin City inkastoo iyada marti loo ahaa awood bay sheegatay. City awoodda ay sheegatay waxay aad waa la soconaa sanadkii hore inay 2 gool intay la hormartay gadaal Pogba 2 gool oo ka dhaliyo 3-2 looga adkaaday. taas ay diidayeen mar labaad inay dhacdo. labadan kooxna waa la soconaa laba koox oo wadankan laga wada yaqaan waay aad iyo aad u dhisan, hase yeeshee City way ka awood badan tahay, wayna ka dhaqaaq badan tahay, wayna ka kubad isku dhiibid badan tahay. Man United ciyaarta oo dhan markii la isku soo duuduubo hal maray gool ka toogteen, halka marna ay toogteen waa gool kulaadka mar walba difaac bay ku jireen. difaacay ku jireen xataa maxaa u sababa la isleeyahay tababarahoodana cadaadis baa saaran Mourinho, marka maxaa sababtu maxay tahay? sababta ugu weyn u saarayaan waxay aad wuxuu la socday Southampton ay 6 ka soo dhaliyeen, Shakhtar Donetsk 6 ka dhaliyeen, marka wuxuu ogaay in 12 gool ay dhaliyeen, tan markii lagu darana 15 gool ay dhaliyeen. Man United oo dhanna markii la isku daro inay 20 gool kaliya ay dhaliyeen, 3 ciyaar ay City waxay ku dhalisay 15 gool. Man Unitedna ciyaaraha inta ay socdeen oo dhan 12 ciyaar ay waxay ku dhaliyeen 20 gool. marka waa u jeedaa farqiga ka dhaxeeyo oo City si xoolay ku socotaan dhaqaaqooda weerarkooda cid u dhawaa karta ma jirto. ka waran marka ciyaaryahanada u ciyaara markaas barbar dhigto haddana iyadoo la hadal hayo in horyaalka Ingiriiska ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa la magacaabi doono, markaas barbar dhigtay labada kooxood. labada koox runtii ciyaartoy markii la dhaho City ayaa fiican runtii. Man United lafteeda ciyaartoy waa haystaa, laakiin ciyaartoy la fasaxa maaha. Guardiola ciyaartoyda wuxuu ogolaadaa inay weerar qaato, ay aad iyo aad weerar u qaadaan. ciyaarta kale xiisaha lahayd waxay ahayd Chelsea iyo Everton, laakiin Ever ba isku dhaafi waayeen. labadaba Ever isku dhaafeen, taasoo Chelsea waxaa u malaysaa in William fursad helay, Hazard fursad helay ay ka faa'iideysan, laakiin lafsaantooda kooxdan Everton lama dhayalsan karo iyo macallinkooda Portugiiska Marco Silva waxay ku soo talagaleen meesha inay wax un dhibac ka qaadaan ama guul ay ka qaadaan, wayna u suurtageli weysay Chelsea inay gudaha u galaan kooxda Everton aad isu difaacday. laakiin Chelsea awal markii hore waxay ahaan jireen wax aad weerar u qaada oo laakiin hadda difaac bay ku aruurinayaan, weeraray ku socdeen, laakiin waxaa u malaysaa afka hore in lagu qabto laftigooda loo diiday inay soo dhaqaaqaan. laftigooda aad iyo aad u awood sareeyeen una dhaqaaq badnaayeen. Everton koox la dhayalsan kara maahan, golahayay qaranka Ingiriiskana way haysteen. waan gartay ciyaaraha kale oo xiisaha lahaa ee dhacay waxaa jiray Liverpool oo ayana marka dhinaca kale laga eego Man City oo horyaalka hogaanka u haysta cagta u saartay. cagta ugu haysay waxaana la soconaa badintii ay badisay in ayaga hogaanka ay la wareegeen, laakiin Fulham waa la soconaa 6 ciyaar ugu dambeysay waa laga adkaaday, waa kooxda Premier League ugu gool dhalintaba loogu gool dhalin badan yahay waay. Liverpoolna run ahaantii waa la soconaa ayadana inaan weli laga adkaanin, marka waxay rabtay inay sida ay ku socoto Liverpool ay ku socoto gool laga diiday oo uu dhaliyay Markovic oo madaxa offside la dhahay ayaa isla markii gool hayaa wuxuu u tuuray Mohamed Salah ayaa laga gaarsiiyay. Salahna 40 second gudood ayuu gool ku dhalay, aad u dheereeya. Salah waxa maqnay difaaci Fulham haddaan eegno ma isleedahay maadaama ay liiska meel hoose kaga jiraan inay hoos u dhacaan baa laga yaabaa horyaalka ay hoos uga dhacaan, laakiin u maleynay inay kooxaad 3 koox dhici doonto inay qadaan sababtoo 100 milyan ayay qarash gareeyeen. macalinkoodana lacagtada kulleyna waxaan qabaa January dii la gaaro lacag kale soo bixi doonaan, marka waxba iska bedel imaan doona, laakiin waxaa u malaysaa in difaacooda oo aad u liito taasa keentay in dhibco badan ma haystaan 5 dhibcood bay leeyihiin. ayaga dhanba 5 dhibcood leeyihiin, hal mar ay badiyeen iyo 2 barbardhac ayay galeen, marka aad iyo aad u liitaan. laakiin weli inay hadday iska adkeeyaan runtii weerarkooda aad iyo aad u fiican yahay, laakiin xagga difaaca ay aad iyo aad uga liitaan. kooxii kale ee ciyaaraya uga cadcadaayay ka waran kooxii kale aad iyo aad u fiicnaa waxay Newcastle oo hoos fadhiday oo gool gaartay oo 2 gool Solomon Rondon 2 gool u dhaliyay. Cardiff aan ogeyn oo xataa dadka ciyaaraha ka faalooda ay dhaheen Cardiff way dhacaysaa, ayadana gool ayay gaartay 2-1 ayay Brighton uga adkaatay. Huddersfield Town oo laftigeeda hoos fadhiday barbardhac ayay heshay ayadana, marka kooxii hoose waxaaba u malaysaaba hadda inay soo kaceen oo ay kooxo kale hoos u soo degayaan.
waan gartay ciyaaraha marka la isku soo koobo wali mar kale su'aasheedu baan ku weydiinayaa yaad isleedahay horyaalkan way qaadayaan farxan sida u jeedidbo city ayay ku socotaa waxaad u jeedaa oo kale Aguero sida uu madaxa u soo sameystay inay ahayd inuu meesha wax ka sameey karay inuu madaxa u soo sameystay dabaaldegi lagu sameeyay Man United inuu qayb ka ahay waa mahadsan tahay aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deesan oo ciyaaraha ka faaloonayay caawa bal markana dhinaca iyo caasimadda Delhi ee wadanka India oo magaalo dad badan oo aan isku dhaqan iyo waliba isku jinsiyada ahayn ay ku nool yihiin xaafad ku taala koonfurta bari ee Delhi oo la yiraahdo Karki dadka ku nool 25% waa Afrikaan laakiin qaar badan waxay la kulmaan midabta koor haddaba wargeys ayaa wax uu rajaynayaa in uu soo dhaweeyo dadka oo u kala qaybsanaanta bulshada iyo isfaham uu abuuro ku soo dhawow magaalada mashquulka ah Delhi waxa ku nool 29 milyan oo qof oo ay ku jiraan Afrikaan kala duwan xaafadda Kirki ee dhacda koonfurta Delhi 25% waa dad Afrikaan ah laakiin qaar badan waxa ay la kulmaan midab kala sooc waxay la tahay dadku in ay si kala ula dhaqmaan ma jiro isdhexgal badan waxaa jira isfaham darro badan iyo warar ku tiri ku teena oo laga faafiyo bulshada qaarkeed waxaan isku daynaa inaan fursad siino dadka aan la maqlin meel lagu arko kuwaan la arkin magacaygu waa Malini Kochipelao tifaftiraha Ingiriiska ee wargeyska codka Kirki oo ah wargeys ay bulshadu leedahay oo ku bilowday in la isku soo dhaweeyo bulshooyinka kala qaybsan ee Afrikaanka ah iyo kuwa Hindida ee Kirki waxaan isku daynaa inaan wax ka qorno sheekooyinka shakhsiyaadka nolosha caadiga ah ee maalin walba dhinacyo badan aan ka fiirno waxaan ka hadalnaa arrimaha magaalada kuwa deegaanka qaab dhismeedka bulshada oo dhinacyo badan leh markii aan bilaabnay dadka qaar ayaa naga shakisanaa sida waa maxay waxa kan waa wargeys noocee ah markii aan bilownay waxaannu isku daynay in aan bulshada dhex galno oo aannu u qaybinno wargeyska waana dareen wanaagsan sababtoo ah waxay u arkeen wax wanaagsan dadku inay wax ogaadaan ayay rabaan waxay u arkaan xaqiiqdii wargeyskana inuu yahay mid ka hadlaya arrimaha bulshada oo bannaanka soo dhigaya codadka aan la maqlin iyo walaaca ay qabaan dadka halkan ku nool waxaan ahay reer Ivory Coast waxaan ahay arday halkan wax ku barta runtii waa muhiim sababtoo ah wuxuu u ogolaanayaa dadka inay ogaadaan Afrikaanka halkan ku nool sida ay u nool yihiin iyo qaabka dadka kale ee Hindida ay la nool yihiin marka qaabka loo dhigo waa arrin aad muhiim u ah arintani waa isfaham iyo in meel la isugu yimaado qorshaheenu waxa waaye hadda inaan u sii balaarno arintan bulshada marka waxaan isku dayeynaa inaan dad badan barno xirfadaha mashruucan lagu sameyn karo kadibna inay naftooda ugu faa'iideeyaan baan xasuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweynaa la dagaalanka wararka been abuurka ah ee Soomaaliya wariyaasha ayaa naftooda halis u geliya si ay runta u sheegaan xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt waxa uu boqonayaa Sacuudiga si uu ugu booriyo mas'uuliyiinta wadankaasi Sacuudiga inay la shaqeeyaan baaritaanka wariyihii la dilay Jamal Khashoggi xusuusan wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa mar kale bogayaga bbc.com/somali inta ayaan daawadayaal barnaamijka caawa ku soo gabagabaynaynaa laakiin mar walba barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib mar kale ugala socon kartaa bogayaga adigoo boqon kara baraha bulshada iyo waliba YouTube-ka BBC Somali intaanu mar kale caawa dib u kulmi doono habeen dambe waxaan leenahay sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh